السلام عليكم صاحبي meel kasta dunida ka joogtaan bal saaxiibayaal ku soo raada ciyaaraha iyo warka ugu dambeeya kubadda cagta soo qaadan doona ay ku jiraan wararkii ugu dambeeya kubadda cagta soo qaadan doona arrimihii ugu dambeeya kooxda Barcelona arrimihii ugu dambeeya Liverpool caawa cadareysay arrimihii ugu dambeeya Brazil iyo Greece ko ciyaaray reer Fanay markaan ku dhahay waa kaas war lay hayaan wadankii maanta la bubuulinayo laha Brazil waa laga adag yahay markaan Ingiriiska qatara 18 sano jira lagu garaacay xabad Ingiriis sheegayaan malaha دوركينا قلا يوحنا سوق هذا دون عربي قدام بيكليبسك من برشلونة من ميسي من رونالدو وارسح بيلو كنا عمده سبسكرايب كنا صار هو جانل سؤال كروجري شيرت يقول لك تنسكت كان ساعات العيار وجعل بالبرنامج كيلو قرسينا وهذا سلام ساعات بالعيار بني يقدرنا انت مقام كنا قدو قلنا انا ودعين والله لهم لا تكتب الخاضي يقودها نمد الصوماليين كل عاو وكايو ريرفانا اقلام بالا قراعي وملي بالا قراعي وانا قول درد قول رئيس بدو halkan kusoo gaaraysa waxaana garaacay Brazil oo ayaanta ka jabnay oo saddex ciyaar xiriir la soo garaacay ya waxa ugu dambeysay 2021 afar ciyaar la garaaco caawana awoon baleeyta tageen bay kaga badiyeen hal gool yabar England dhamaadkii ciyaarta yaa lama taqaana caanug yaro 17 sano jira oo Madrid u sii gadan dhaliya ah waa sababta saacad ugu dambeeyay loo leeyahay Rodrigo waa la iibinaya Mbappe imaanaya cunugan Mbappe kala leewa asna xaga dambu imaanaya marka waa sababta Rodrigo in kooxaha Premier Arsenal United City ay boqolaalka malyan lagu doonay la sheegayo marka Ingiriis reer Fanay leewa yaa la sheegin waxaas ladaas u fiirsanay barnaamijka qaybtiisa markaad fiirsanaysaa muuqaalada aan si duubanayo dhaladana ku maqnaad arkaysaa Koobmayno waa la soo gelinaa Rashford waa la soo gelinaa Raisa ku jiro laacib le buuxo wax leedahay war waxaan tira badnaa oo laacibin badan leedahay waxba ma hayaan reer Fanay leewa 18 sano jira lagu garaaca England wax matar waligiisa soo aha kuwan ii sheegaysi aniga kuwa weyn oo lahay wuxuu ku leeyahay golden generation ay ku leeyihiin Gerrard iyo Lampard iyo Ferdinand iyo John Terry iyo Beckham iyo waxaas la wadada ala garaacabo amel saar jiray ma taqaan ciidan konti 6 sano koob la yahay saasa la warbaday macna konti 6 sano war lay hayaan Elizabeth bay dhiminaysi habarti argay ahayd barigaas bariga Ingiriis koob ugu dambeeyay ilmay ahayd ma khari noqotay iska baxday ya marka Ingiriisyaan ku sheegin been lay hayaan waligood aysan ahayn maanta kor ciyaarta maxaa lahay Ingiriiska ciyaartooyda Brazil taqana Ingiriiska la sheegsheegoya laakiin anaga Brazil baan naga shakinay lahayn laacibiintii ku sirin waa lagu daalad kana konti 8 sano ay iska qaadan habaar waa kaase hada Euro ugu cadal leeyahay macna aan markay ii dhahay Ingiriiska ku qoslaa macna waa abu salay macna awadana maanta inta la wadwaday buuqood la wadwaday Soomaali badan Ingiriis taageero ogaay aniga waliga Ingiriis ma taageerin wali England waliga ma taageerin horta waa sida saxda ah ya haday badin lahayn nicmada ku tuuri laakiin inuu faataalayaal yihiin oo reer Fanayna ku ogaay Ilaahay faan ka dhigay ayagoo dhahay it's coming home koobka guriga u imaanaya ayagoo dhahay afajista ka qaaday tirani azuuraha ka shakin waliga indhaha lagu dhuftay socod baxaleeray indhaha birtooda lagu dhuftay wariyaa indhaha birta ku dhufana indhaha birtooda ku dhufana dhigi jirno indhaha birtooda lagu dhuftay koobkana waa laga qaaday Italia ka qaaday ciidan war lay hayaan 18 sano jir Ingiriiska oo Madrid u gadan Rodrigo la dhaho waxa laha magaciyaan haynin hatta bal fiir markaas nagu dhibaysin waxaas ii sheegaysi aniga Bellingham khawba khajaja Ingiriis aad nagu leedahay in rigaal laha aka dhaliyo gool marka calay xal Ingiriis caawa marada waa ka dhacday ilmaha sana caawa lagu garaacay wararka ilmahaas baa caawa garaacay runtii marka Ingiriis yaanu ku sheegin Southgate waa wadan kaliya ugu yaraan 2 jeer ku wali aanu ka badin weeyaan runtii marka caawa meesha waa lagu ceeboobay Ingiriis waa ceeboobay Enric wuxuu noqday daa'irka ugu yar Eva ee gool ku dhaliya ama koox ama xulba ha noqdee Wembley gool ku dhaliya runtii waana Brazil daa'irkii ugu yaraa tan iyo Ronaldo fenomeno saash afartii asoo jira caawa 17 sano iyo 246 maalmood ayuu halka caawa gool ku dhaliyay ninka Enriga marka waa marka waxa lagu leeyahay waa daa'irkii ugu yaraa ee ciyaartooyga ragga taariikhda Wembley gool ku dhaliyo inuu saas u dhan ma jirin taariikhda weey runtii inuu halka Wembley gool ku dhaliya marka ninka Madrid u sii gadan waliba goolkiisa ugu miisana ciyaar muhiim buu yimaaday marka England 20 ciyaar kadib ayaan caawa gurigoodii lagu garaacay marka el fenomeno ugu dambeeyay inaan saas u daa'iro madax fudud waliba maalin markii xulka lagu wacay el fenomeno ugu dambeeyay ciyaaraha saas u daa'ir oo xulka Brazil looga waca marka waxa weeyaan ninkan ama team وعيريان كوري تيم كسعودة أم حول كسعودة أم بلي سوى يرجع كل اللي ويان روتين كتاريخه مركع وماش والجوع عبوبي إنجليز مركز ساس لواي يانو بين إني شيجن
waliba hadda rekoorka hit waa laga sii badan yahay ciyaarta maanta kahor Ingiriis taariikhda wiligiis wuxuu ka badiyay 4 jeer Brazil tomiko bareja la galay Ingiriisna Brazil ko itano badiyay marka caaw lagu daro tan waa 12 jeer yaa la garaacay reer Fana Ingiriis ciyaartan waxa warka u weyn uu ahaa Walker ayaa Man City ciyaartooyda dhaawac soo gaaray habeenka kollay Finish Junior ordo ku dhaawacay ninkii يعني marka uu dhaawacmay macnaha caadi ma looga orday macnaha kubadda goolaha saal looga qaatay kubadda uu Finish Junior gool ku taraarixi buu Walker ka daba tagay goolkii kubadii uu badbaadiyay intuu kubadda daba orday oo soo badbaadinayay ku dhaawacmay ya marka Walker kubadda waa si ciyaari ka ciyaarta inuu si wato doonay shubka laakiin waxaan marka intuu markuu ciyaarta ku laabtay waxaan istiri maxamedow ninkan ku jiri doono marka aan qoray dhaha warninkii Walker waa dhaawacmay laakiin ciyaarta inuu si wato ayuu rabaa ya waxaan inaan qor ku darbo waxaan dhiri laakiin Finish oo joogo Walker hore loo sii dhameystiraan istiri soo Finish bini aadan ma ahan maanta in insaan la orday weeyaan caga wax ka day bababa ninkii hadda marka xogaa dadka qaar hadii xataa garabka ka ciyaar lahayn Brazil asoo siisu ku cilaha asoo dhaawac dareemaan u gaarin ya sidiisu markuu soo laabto ciyaarta uu celin lahaa laakiin Finish hal uu dhiibo oo maanta dan iska sii ordaayo marka waxa la iska soo bax Walker kan nin fiyo qaba karin orodkiisa kulay ciyaartan wax yar baan daawanay sheekadooda Madrid iyaga isku arki doona kulay Walker waxba soo gaar wixii laga waan arki doona kulay halan saacad gudaheed waa ciyaar Bukayo Saka ciyaarta Arsenal Man City uu ka maqan yaani dhaawac soo gaar wal eegaya haduu imaan doono hadii kale Martinelli imaan kara la firay golaha Man City waxba ku jira dhaawac wala sheegay Maalud caawa xitaa xulku lagu ma arkin De Bruyne Maalud faris baa laga soo sheegay wala Man City Arsenal wala sahaaro macna caawa Walker xubki il lagu saari ma aqaan kul waxay ka soo kordhay war waa kale ee ciyaaruna waxa caawa kamid ah in maanta odayaashii xitaa ay fadhiga ka soo kaceen waa caajiseen mugtay waa ragii weyna ragii hore ay ahaayeen mugtay Madrid odayaashooda xitaa waa ciyaareen Liverpool odayaashooda waa ciyaareen rag waa daalay oo ayaantan fadhiga ka batay jilib culayska maanta la soo kiciyay oo kulan odayaashii baa dhacay xitaa oo Liverpool xitaa 4 bay geeyeen maanta la labo Ajax Gerrard iyo El Niño Ferran Torres baa kulmay Torres bina xitaa jimle uu noqday maarta warkeeni kan ka horeeyay waxaan ku sheegaynay in markii lagu arkay tababarka Liverpool El Niño tayrash waxay yiraahdeen war ninkan hadda uu ciyaari karay yaa soo isku dhisay hadda tababaraha da'yarka Atletico Madrid weeyaane waliba taageerayaasha goolkiisa sugayeen markii uu dhaleena aad baa loo kacay hadda ninkan waxa uu ahaa ninkii Liverpool intuu u ciyaaray markuu Atletico kaga yimaaday walow taageerayaasha Liverpool ay ka qalbi jooyay markii lacagtii ugu badneed record British ugu wareegay kooxda Chelsea walow ay ka niyad jabeen laakiin maanta aad bay ugu cimaamadeen xitaa waxaan arkayay ninkii Jabril Cisse ah isaga taa maanta gool buu runtii kulankan ka horeeyay mobile yar Ronaldo waba si cayl runtii dhankan waxaan ku Steven Gerrard baa joogo maanta kabtanka tiimka ahaa Edgar Davids baa hore ugu madax fiiqna Ajax ragii ya tababarihii hore xulka Ingiriiska Steven Goran Eriksson oo January la soo dhaaf sheegay inuu ku dhacay cancer ya Liverpool hogaaminaya maalinka waliba ciyaarta ka hor Jordi Klopp bay wada kulmeen waxaana Eriksson uu sheegay waa tababarihii Ingiriiska wuxuu sheegay inuu marba rajay jiray waligiis inuu one day Liverpool tababar u noqdo maanta isaga ciyaarta lagu cimaamaday oo yaani lagu sharfay runtii waka marka Liverpool odayaashoodu waa khatar waxa la rabaa Liverpool idinka saadine Maalid ta Milan bay la ciyaareen ka xataa waa ciyaarayo marka Milan la ciyaarayeen darbiga oo soo laabtayba oo Istanbul iyo Athens ka dhacay ولوني كبدين أنو بيرلح تمانت من برزون لين قياسية سيدس ولو دالنا لكن ليفل بديسان قياسية لكن ليفل وحال ربا هدي واحد البنيان odayaasha halista badan hadal badan Liverpool mugtay ragii di wal rag dhalinyaro odayaashoodu waa rag dhalinyaro ka buuxsaday jirada kala dawaaban aad u ciyaari yaqaan Torres oo arkaysan runtii waxa la rabaa Madrid oo kale inaad dalbataan inkastoo iyagu xataa waayeel iska yar qabaan ya hadda fiiri maanta kale Madrid waxay la ciyaaraysay in Bernabeu waxay kula ciyaareen FC Porto inkastoo Madrid hal ibar looga badiyay maanta ciyaar mid qana sidka ciyaaray sidrof oo bariyaan leedihiin Kobemayno cusub weeyaan Kobemayno waa sidii sidrof leedihiin odaga jooga runtii waninka kaliya taariikhda ninkan 3 Champions ku qaaday 3 kooxood oo kala duwan Luis Figo jooga maanta Zidane maanta ta ciyaaray oo waliba taageerayaashu ay leeyihiin asoo kontiniko sana jira ayuu wali maqaarkii sidoo raba ka yeelaya Zidane hada nin weyn buu haayo waliba wuxuu ahaa nin tagay buu haayo cimaamadiisa aan la haysan karin ninkaas marka nin weyn weeyaan Zidane maanta waxay leeyihiin goodka lagu sheegayba Zidane bay leeyihiin runtii marka waxa weeyaan hadaas wuxuu ku leeyahay goodkiga aniga Zidane weeyaan buu ku leeyahay runtii Yamal soo ka hadlay arkay odayaasha Ronaldo Messi ka hadlay wuxuu aniga Zidane baan ka dambeeyaa ninka uu ku guuleystay World Cup-ka waxa uu Juventus buu ka soo tagay Madrid buu yimaaday 2001 shanta sano waysa ka harsaneed wuxuu ku qaatay Marangeska isagoo muddo soo dhaliyay 49 gool 230 ciyaarood hadda bariyahan waxa leeyahay Jude Bellingham ba Zidane inay baa leeyahay runtii
oo xataa lambarkiisii loo geliyey ninka marka 49 gool Madrid u dhaliyay 230 ciyaarood Champions League buu la qaaday 2002 La Liga buu la qaaday sanadkii ku xigay adiga ninka waayihiisii wax weeyaan Real Madrid buu ku soo gabagabay Yaaniga ka sii xanaajiyay hore isaga fariistay watuu Materazzi hirdiyay Madrid buu tababar u noqday wani ka ku shaqulay laba jeer kala dumadeed uu tababar u noqday saddex Champions League xiriir buu intuu qaaday buu laba liig ku qaaday runtii walahi barihan baagan Bundesliga wuxuu leeyahay sidaan aniga koox jaabay ما بلغ سو ديسو aniga wax aan koox jaabay maamuli karo hadii aan koox maamulay waa inaan team weyn maamulay walaay ka waxaan madax yaa laga cunay leeyahay runtii waa ka sidaan marka wax weeyaan wali jamaartu waxay leeyihiin talentiga buu leeyahay xilli xataa Manchester mar la sheegay ninkan inay suuqa baad goobis maalinka Madrid u joogay taqaan ciyaaray odayaashooda Casillas Roberto Carlos Ivan Campo Arbalo Karimbu Zidane Solari Sidorf Vigo xataa waa joogo maanta Rahul Morientes حتى جوجو ورينا مكاس لما دوا كار كور ماجماني من إسحاق حتى إنك سوليفول وصوها بابتيستا راول برافو بافن هذيك جرانيرو أي والله بدنا مركب مدريد وضياشوا عيار مقالن حتى ضياشوا برشلونة لو ما دوا كار وضيا لو باشوا رونالدينا إسكينا يدت بدن بقى معنا يوم مركب وضياش ليفول لو بديان كوي مدريد ولا قبل برنو بالو قراعي انت وضيا ليدي جلب عليسكي وما انت عياري وركو وين برشلونة ما لويد وربع سوكر ليو شيغي ان ربي شي لامينا يمال اي ربتي ان كو بدلتو امبابي ورينا اسو بندغتي لعقدن 200 oo milyan waaliya hada warkaas shaqabeela loo marinay madaxweynaha Barcelona xaqiijiyay wuxuu yiri waxaan helnay dalab waaliya yaan nalaga soo gudbulay raga sida Lamine Yamal oo gaaraya 200 oo milyan waan diidnay dabcan ya Lamine waan aaminsanahay man rabnaa iska iibino leeyahay marka warka ku aadan biishii ninkan rabtay waa sax ciidan carabta waxa la daba dhigay Barcelona la daba dhigay maray ay ka soo qaataan Neymar maray cunug hada Xavi Simons kala iyaga ka qaatay Barcelona laga qaatay oo hada laacibka khatarta badan labsi kameen u ciyaarey Madrid dhaxda ku wareysanayay haddana Lamine bay karbeen Messi caadi uu ku qaateenba marka wuxuu leeyahay waa dhalinyarada hadda noo soo baxay uu leeyahay maalin kasta dalab loo soo diraa sida Baldi Fermin Pedri Dion Araujo Gavi laakiin annaga ma iibinayno leeyahay waa jirtaa shiid iyo xagay madawad waa jira wali xagay madawad waa jira dhaqaale dar waa jirtaa wali runtii laakiin annaga ciyaartoogeena weyn kama iibinayno wali runtii ya oo had cidna kuma khasbeen xoog ku iibino balse iyagu rabaan qofkii raw u baxaya laakiin wuxuu anaga ciyaartoogeenu ma iibinayno wali ruwaata mid kale Sacuudi madaxweynaha Barcelona xaqiijiyay inay jirto wadahadalo ay kula jiraan iyo rabitaan kaga aadan laacibka Napoli Labotka intii maalmo dal ciyaari kulkii Napoli iyo Barcelona labaad ayuu Xavi sheegay inuu ciyaarto uu jecel yahay Napoli uu yahay Labotka ya markii Xavi muujixiisa ninka wakiilka ninkan baa hadlay wuxuu dhawaan u sheegay wuxuu dhawaan sheegay in Barcelona ay wada fariisteen iyo wada hadleen Deco oo director kooxda ah iyo Xavi oo ku aadan in Labotka Napoli laga soo wado oo Barcelona la keeno warkaas madaxweynaha Barcelona la weydiiyay wuxuu rumeeyay wuxuu waa sax wuxuu leeyahay waa ka wada hadalnay Deco waxa jira leeyahay runtii sax weeyaan buri waan jeclaan lahayn inaan soo qaadano waxyaabo waxa jira runtii inaan xalino ka hor intaan kan soo qaadano yaani dhaga kharashaadkii dhaqaalaha Labotka imika sodan buu yahayba soo waxa weeyaan wakiilkiisu wuxuu sheegay hadii dalab uu ka yimaado Barcelona inay Napoli kala xaajoon doonaan runtii ninkan hore uu ugu soo ciyaari jiray Celta Vigo La Liga 2020 marka uu mudada halkan buu joogaa 2020 heshiiskiisu gaaraya حتى نابولي يحب الدنيا سيسكين وكرديان بل سهدي برشلونة وركاس رسمي كي يولي وكيلك يا وانو خادني نابولي رنتينيكا وانو فسحينا يعني نيكو الله خالينا يا نابولي وان كهلينا ولا مدحوينها دبك بدنا واكان isla Barcelona soo gobogay arinkoodu maanta waxaan soo sheegnay inuu ku beegnay 10 sano ka hor markii Clasico Real Madrid Barcelona ay 4 isdax kaga badisay Madrid iyadoo Messi maalinkaas uu hadrig dhaliyay mas ogtahay maalinka mid hadrig uu dhalinay inuu ku noqday runtii taariikhda ninka El Clasico history uu goolasho badan ilaa imaanta asaa uu gool badan Clasico ogtahay ragii soo maray Cristiano Ronaldo ku jiray iyo ka horeeyaba isaga ugu badan waa ka xilli saacad ugu dambeeyay Ronaldo isna la hadalay runtii oo lambarkiisii Portugal ciyaarto kale waxa ku ciyaaray inkastoo uu soo laabanay ciyaar soo aadan u dhaawacmay laakiin la leeyahay waa markii ugu horeysay la leeyahay runtii Ronaldo in lambarkiisa cid kale xirato tan iyo sanadii 2017 marka odagu ayaantan dhaxalkiisii waa loo soo dhigtay baa runtii booskiisii waa ka warka tan ka soo waxay sheegayaan intuu sin xiiseynayso ninka Mason Greenwood oo Manchester doonayso inaanu soo celinba marka ninkan kooxda league ka tirsan buu ka tirsan yahay Gatef ama 12 gool si kan si 26 ciyaarood oo uu ciyaaray uu lix kamid horyaalka ugu dhaliyay 5 uu caawiyay marka waxa la cajuusta doonaysa Greenwood halka sidoo kale wiilka Swedishka ah
u ciyaara Lisbon ee sanadkan goolasha dhan farinaya weli uu rabitaankiisa muujinayo ku biro AC Milan waa ninka la yiraahdo Gyökeres ninka kan waa ninka season kan uu haysta goolal gaaraya wuxuu haystaa goolal gaaraya 36 gool ayuu dhalay runtii 14 gool buu caawiyay 39 ciyaarood marka waxa la sheegaya Milan in yani ma taqaana yani inay sii kordhayso rabitaanka ku aadan ninka in la wareegi doonaan wali maadaama ninkan Swedish yahay Ibrahimovic baa khalkhalin doona leeyahay hadda madax ka ah AC Milan Milan Giroud baa ka tagi doona isaga soo aadan oo qaaro iska noqday runtii 7 sano jira marka waxay warku sheegayaan Milan in ninkan gacanta ku dhigi doonaan walo ninkan markii ay soo qaadanaysay kooxdiisa Lisbon 20 milyan ay kaga soo qaateen kooxda Coventry laakiin iminku qiimihiisu qaali weeyaan kulal weeyaan 100 milyan buu joogaa marka Milan waxay leedahay kabta hadii saasta ma gashan karno hadii balse aad keentaan lacag 50 ilaa 60 milyan ciyaartoy wallahi waxa 100 ma ka bixi karnee iska hadal kooxda 50 ilaa 60 hadii la keeno waa lagu qaadanayaa marka Ibra ayaa ka shaqeynaya ninka ninkan ciyaar gala ma ah nin season kan dhaliyay 36 gool ba kabtiisa ninkaas kabweyn oo 14 gool caawi Bruno Fernandes ugu dambeeyay ciyaartoy Manchester Summer Lisbon ee sidaas sameeya tan iyo muddada taa waka xilli 6 sano kor ku beenay Ibrahimovic qudhiisu markuu ku beeray la Galaxy gool caan buu kale wali maalintii ugu hore soo galay wad yaabaysa kubaddu dhaxda ka dhalinay iyo wacdaradu dhigay Ibrahimovic weyn buu ahaa dhaawac baa ka fir laakiin Milan markuu dambe uu yimaado xataa Real ugu dambe uu la qaaday imika baa laga dhigay ninkii Maduka waxa la runtii 6 gool buu ku leeyahay 9 ciyaarood uu ciyaaray England kulatan jirada Euro sreebkiisa xalay Colombia Spain bay garaaceen Diaz waa la amaanay waliba iminku waa ambitin baa leeyahay Colombia 20 ciyaarood ee la soo dhaafay iyagoo muddadaas la soo ciyaaray guul ka soo gaaray wadamada sida Spain Brazil Germany iyo Japan marka wadanka uu ka tirsan Diaz waa sanadkan iyagoo meel bay u socdaan gabdhihii Manchester City waxay garaaceen ku United 3 gool iyo gool ragii iyo gabdhihiiba labada dhinac waa la haystaa abay heeligi Manchester abu heeligu Manchester waxa haya ku City haya soo magaalada Manchester waa Manchester City yoodaba waa sababtu uu leeyahay ninka hadda kooxda Manchester yimaaday Sir Jimmy Ratcliffe uu leeyahay qaybta ka yeeshay wuxuu yiri Manchester City yaan laga ganaaxin buuri mar rabo Manchester City loo dir waxaan rabaa magaalada in awoodeeda soo celiyo oo Manchester City aan ka sareemari marka uu leeyahay Manchester City saas uu yiri moogtahay waa u dhaarsan uu nimanka yaan laga ganaaxin marka ninka inuu dib u dhis soo maxay yeelay gabdhiin wal tumo wiilashii waa la tumaya maantana 3 baa laga kiciyo Buni Show iyo gabdhihii reer Manchester City ku baashaalay waliba golahayoodu Ederson kamalaha waxa leedahay meesha Ederson waxa ka gabadhana ka war gabadhu caluukay u muuqata laakiin balse waa maanta Manchester meel iska saartay iyada ku onaanaysay gabadhaas caluukada xataa wax ka dhali karaan waa taa marka Manchester waa la iska haystaa taariikhda kulankan guulahoodan waxa badan gabdhaha Man City ayaa ka guul badan kuwa United sawirkan waa ciyaarta koor buu ahaa ciyaarta koor waxay guuluhu marayeen Man City 7 badisay United 3 jeer badisay iyo 4 jeer Brazil marka lagu daro guushan 8 jeer bay guuluhu marayaan soo Ibrahim Diaz wad arkaysan kulanka guur u saftay xalay Morocco Spain uu diiday Morocco doortay halkaas si fiican baa looga soo dhaweeyay hal saac ugu dambeeyna ciyaartooyga ajabta ah Afrika soo jeeda been isku sheegeen qaarkood bumbariyaan waxay bilaabeen iska diidaan wadamada Yurub inay u ciyaaraan Sacuudi maxta Tuzabe oo Ipswich u ciyaara Sacuudi dambe go'aansaday inuu Ingiriiska maadaama boos uu ka helino waxaan faraha badan ay buuxaan wuxuu doorbiday inuu koongaba xaqeeda u wareego u ciyaaro war waxaan leeyahay saaxiib yaal nabadgelyo